Gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen ayaa ka hadlay shilalka ay Sababaan Booyadaha Hargeysa biyaha u qaaday baabuurta qaadku kuwaasi oo uu sheegay in magaalada Arabsiyo xawli ku dhex maraan isla markaasina ay sababaan shilalkeena dhimasho iyo dhaawac badan. maalmahan u dambeeyay waxa si xawli u soo badanaya shilalka baabuurta ee ka dhacaya degmada Arabsiyo cabashooyin badan baa naga soo gaaraya socodka booyadaha ee aan xad ka lahayn magaalada dhexdeedii baa laga cabanaya shilka daraad ka dhacay magaalada Arabsiyo horteed waxa noo imanayay cabashooyin fara badan oo naga imanayay booyadaha sida u soconayaan waxaan askariye chief oo sameeyay magaalada gudaheeda marka la iska dhaafo dibadeeda ama wadada weyn marka laga yimaado waxaan u sameeyay askariye chief magaalada gudaheeda oo shacabka qaarkood aan iska dhiga askari chief way gaariga lama joojin karo oo soo gelin lama oran karo dhinac kalena goor walba looma joogo oo lama oran karo speedkii uu ku soconayay lama dhimi karo waxa xaafadaha dhexdeedii waxa dhacday in dadkii xaafaduhu ay cabanayaan gawaaridii garab marayay iyo xawliga ku soconayaan habeenkii iyagoo kala dheereynaya oo kala dheereynaya marka ceelasha iyo biyaha waxa dadka qaad ka taagan yihiin marka socodka xawaaraha uu ku soconayo gaariga oo runtii ah xawaare aad u sareeya gaariga yar iyo gaariga weyn inay isku socdaadaan ma waxay ahayd un saaka markaan arkaynay laba gaari oo gawaarida qaadka qaada oo si xawaare isbirkooda aad u sareeyo ku socda iyo booyad istaba socda oo booyadii aanay kaba gaabinayn bay speedkii ka qaadka ku socda waa masiibo weey waa dhibaato imika waxa weeye waxaan cabsi uga qabnaa iskuulka dhinaca naga xiga oo ardayda ka soo baxaysa ay marayaan wadada ayaa waxaan qaad ka taaganay iyadoo askariye jiifayaan in haddana sida u socdaan ay tahay si xad dhaaf. Gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xuseen waxa uu digniin u diray darawaliinta booyadaha iyo gaadiidka qaadka isagoo xusay inay yihiin kuwa qayr mas'uul ah. jiray boqolkiiba waxaan oran karaa 80 shilalka ka dhaca Arabsiyo waxa sababo oo geysta booyadaha geysta waxa soo raaca gawaarida qaadka waxa kale oo soo raacaya gawaarida caadiga oo waxa weeye qadar ku soo wayo qadar qoran laakiin inta ugu badan waxa sababa number 1 booyadaha khaladka ugu badan iyo waxa weeye shilalka ugu badan iyaga geysta oo magaalada ka geysta maantada cabashada shacabka ee noo imanaysa tirada ka badan tahay ciidamada amnigu ay kala ilaalinayaan shacabkii oo ku kacsan booyadihii oo aan u socon sidii loogu talagalay booyadaha waxa wada inama yaryar oo qayr mas'uul ah qaarkood inama yaryar oo qayr mas'uul ah oo aad soronayso sharci uma haystaan bayna wataan da ahaan iyo mas'uuliyad ahaan waxa laga yaabaa inay soo jeedaan oo ay waxa weeye saamaleeyaan habeen iyo laba ay soo jeediyaan oo laga yaabo in laba soo jeedino maalin saddexaad isagoo yoom raadsanaya uu gaariga soo fuulay deetana ay soo weeyaan inay shil geystaan ama waxa weeye dhib iyo dhibaato u geystaan shacabka reer Arabsiyo. Gudoomiyaha Xamse waxa uu sharaxay shilalkii Arabsiyo ka dhacay sanadihii la soo dhaafay isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxay ahayd 2017 markii halkan caruur ardaya oo wadada socda uu gaari booyadii shilka waxa ka dhacay hal dhimasho ah oo waxa weeye ku dhintay iyo laba dhaawac oo maanta waxa weeye curyaana oo magaalada dhex socda runtii waa dhacdooyin xanuun badan weey 2015 halka dhimasho iyo labada qof ee dhaawac ahina waxay ahayd huluuq bay ka dhacday labada shil ee foosh xun baa Arabsiyo ka dhacay iyo shilal kale oo kamid yahay kan daraad hore dhacay runtii waxaan u direynaa digniin gawaarida soo galaysa magaalada ee biyaha soo doonanaysa haddii xawaaraha ay dhimi waayaan oo ay u socon waayaan si eeda badan oo sida gawaarida kale u socdaan u socon waayaan waxa weeye tallaabo in laga qaado ciidamada amnigana waxaan leenahay arrinta xoog looga hawlgalo runtii kiiskii shalay dhacay waxa la sheegay in maanta ay dhamaatay hawshii ka garqaadkiisa oo qaladkii aw yeeshay dhinaca wadaha booyadu arrintaasi waa arrin la filayay oo runtii marka hore baan ka filaynay ciidamada nabadgelyada wadooyinka waana ku hambalyeynaa runtii waayo waxa weeye gawaarida speedka noocaas ku socda oo runtii maanta ilaa shalay ilaa daraad cabashoodu soo gaarayso iyo gawaarida normalka ah ee wadada socda inay isku mid noqdaan maba ah shacab oo si fiican u socda iyo gaariga booyada oo gaariga qaadlaha aan ka hooseyn speedkiisu in isku sharci loo qaadaa runtii cadaalad noqon mayso
waana ku hambalyeynaa waxa weeye ciidamada nabadgelyada wadooyinka maanta wixii ka dambeeyana waxaan isku daynaa in falalka ay noo geysan doonaan aan ka hortagi doono difaaceeda degmada iyo ciidamada nabadgelyada wadooyinku ay iska kaashan doonaan waxaan ku soo gabagabeynayaa tacsiib aan u dirayaa runtii ehelkii iyo qaraabadii ay ka kala geeriyoodeen labada qof ee ku geeriyooday shalay daratoole shilkii ka dhacay Arabsiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo baan leenahay ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo degmada iyo anagoo maamulkii degmada oo dhammaan uu ka baxayna sabir iyo iimaan ilaahay ay naga wada siiyo mukhtaar nuux ibraahim telefishinka caalamiga ee Real degmada Arabsiyo